وتلامنتين أصحابتك سو دوادا برنامجكينا 1 by 1 waanu kusoo qaadan doono wararka iyo warbiximihii ugu dambeeyay waxaan wadaagi doonaa dhaawac ciyaartoyga Ronald Araujo iyo muddada la filayo inuu ka maqnaan doono garoomada sidoo kale tartanka loogu jiro ciyaartoyga Bellingham iyo horyaalka La Liga oo la sheegay xilligii la ciyaari lahaa kulanka El Clasico aynu ku biroonay waxaa si rasmi ah loo shaaciyay xilligii la ciyaari lahaa kulanka El Clasico xilli ciyaareedkan kaasoo ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu haddaba kulankan El Clasico waxa uu ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu 16 bisha Oktoobar ama 16 bisha Tobnaad saacadu marka ay tahay 5 iyo 15 galabnimo haddaba sababta ugu weyn ee kulankan looga dhigay saacadaas ayaa ah maadaama uu kulanka El Clasico yahay kulanka ugu xiisada iyo xamaasada badan kubadda cagta ayay isku dayaan mas'uuliyiinta La Liga sidii ay suuragal u noqon lahayd inay kulankan daawadaan inta ugu badan ama taageerayaasha ugu badan ee kubadda cagta haddaba sidaa darteed iyadoo ahmiyad siinaya taageerayaasha kubadda cagta gaar ahaan kuwa qaaradda Aasiya ayaa waxa ay sameeyeen mas'uuliyiinta La Liga inay kulankan ka dhigaan saacadu markay tahay 5 iyo 15 galabnimo tusaale ahaan oo kale sanadihii ugu dambeeyay ama labadii xilli ciyaareed ugu dambeeyay labada kulan ee El Clasico ee xilli ciyaareed walba la ciyaara horyaalka La Liga mas'uuliyiintu waxay isku dayeen inay mid ka mid ah ka dhigaan 5 galabnimo tusaale ahaan oo kale xilli ciyaareedka hore marka laga yimaado El Clasico-dii dambe ee ay kooxda Barcelona kaga badisay kooxda Real Madrid 4-0 kaasoo ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu El Clasico-dii taa ka horeysay ee ka dhacay garoonka kooxda Barcelona ee Real Madrid ku soo badisay 2-1 waxa la qabtay ama waxa ay ahayd saacadii la ciyaaray 5 galabnimo sidaa darteed waxay isku dayeen mas'uuliyiinta La Liga inay kulankan El Clasico ay daawadaan ama ay ka qayb qaataan taageerayaasha ugu badan ee adduunka dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa shaacisay inuu ciyaartoyga Ronald Araujo uu qaliin mari doono kadib markii uu ciyaartoygan dhaawac ka soo gaadhay kulankii ugu dambeeyay ee uu ciyaaray xulkiisa Uruguay ciyaartoyga Araujo ayuu dhaawac soo gaadhay kulankii ugu dambeeyay ee uu ciyaaray wadankiisa Uruguay waxaana kulanka dhaawac uga baxay daqiiqadii afaraad haddaba ciyaartoygan Araujo kadib markii uu kulanka dhaawac kaga baxay waxaa hortiisa yaalay laba go'aan inuu ciyaartoygani daawo dabiici qaato iyo inuu ciyaartoygani qaliin maro haddaba ciyaartoyga Araujo ayaa go'aansaday inuu qaliin maro waxaana la filayaa inuu Araujo maalinka Arbacada ah uu u duuli doono ama uu u safri doono wadanka Finland si uu qaliin ugu soo maro halkaas waxaana la filayaa inuu ciyaartoyga Araujo uu ka maqnaan doono garoomada muddo 2 bil iyo badh ah haddaba ciyaartoyga Ronald Araujo oo kamid ah daafacyada ugu fiican hadda adduunka sidoo kale kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Barcelona iyo xulka Uruguay ayuu ciyaartoygani waxa uu seegi doonaa kulamo badan sidoo kale waxa uu shaki ka jira ama waxa la filayaa inuu ciyaartoygani seegi doono koobka adduunka kadib markii uu ciyaartoygu rajeynayay inuu ciyaaro koobka adduunka markiisii ugu horeysay waayihiisa ciyaareed haddaba kulamada ugu muhiimsan ee ciyaartoyga Araujo uu seegi karo ayaa waxa kamid ah ama kulamada uu seegi doono gaar ahaan kooxda Barcelona labada kulan ay kooxda Barcelona la ciyaari doonto koobka Champions League kooxda Inter Milan haddii ay noqoto kulanka home-ka ama kulanka away-gaba sidoo kale waxa uu seegi doonaa kulanka El Clasico iyo kulanka ugu muhiimsan ee kooxda Barcelona ku martigelin doonto garoonkeeda Camp Nou Champions League kooxda Bayern haddaba ciyaartoyga Araujo oo kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ayaa waxaa tabi doonta kooxda Barcelona ama waxaynu eegi doonaa sidoo uu xaaladan ula tacaalo tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi sidoo kale ciyaartoyga Araujo ayaa waxa uu baahnaan doona xulka qaranka Uruguay isla kooxda Barcelona ayaa la sheegay inuu hadafka kooxda Barcelona ee xagaaga dambe ee sanada 2023 uu yahay ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City ee Bernardo Silva iyadoo ay waayihii ugu dambeeyay jireen warar sheegaya in kooxda Barcelona isku dayi doonto inay soo ceshato ciyaartoygeedii hore Lionel Messi haddaba hadda wararka ka soo baxaya kooxda Barcelona ayaa sheegaya inuu hadafka koobaad ee kooxda Barcelona ama ciyaartoyga koobaad ay isku dayi doonto inay kooxda Barcelona la soo wareegto uu noqon doono ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City ee Bernardo Silva ciyaartoygan ay kooxda Barcelona ku fashilantay xagaagii dhaweyd inay la soo wareegto kadib markii ay kooxda Manchester City ciyaartoygan sheegtay inuu ku fasaxi doonto ugu yaraan 80 milyan xilligaas oo ay jirtay ama ay aad u liidatay xaaladda dhaqaalaha kooxda Barcelona ayaa la sheegay hadda in kooxda Barcelona diyaarinayso in ciyaartoyga Bernardo Silva la soo wareegto xagaaga dambe ee sanada 2023 iyadoo la sheegay in kooxda Manchester City shaacisay in ciyaartoygan ku fasaxi doonto ama inay ku fasaxeen ciyaartoygan qiimo ka yar 80 milyan oo euro oo kooxda Manchester City kadib markii xilli ciyaareedka hore ay sheegtay in ciyaartoyga Bernardo Silva uu sii joogi doono kooxda balse wixii inta ka dambeeya ay kooxda ku fasaxi karto 80 milyan oo euro ay hadda kooxda Barcelona qorsheynaysa in ciyaartoygan la soo wareegto xagaaga dambe sidoo kale ay ka gudbin karto dalab ah 60 ilaa 70 milyan oo euro kaas oo u dhow qiimaha ay ku dalbanayso kooxda Manchester City inay ku fasaxi doonto dhinaca kale kooxda Juventus haddii aynu eegno kadib markii ay jireen warar sheegaya in ciyaartoyga Vlahovic doonayaan kooxaha Ingiriis ah sida kooxda Arsenal iyo sidoo kale kooxda Bayern oo kooxda Bayern kadib markii wararka la xiriiriyay inay doonayaan ciyaartoyga Vlahovic waxaa soo hadlay mid kamid ah mas'uuliyiinta kooxda kaasoo beeniyay inuu warkaasi jiro halka aanay weli sheegin ama aanay ka hadlin kooxda Arsenal
oo ciyaartooyga waxaa la sheegay inay kooxda Arsenal doonayso oo waliba ay diyaar u tahay in ciyaartooygan ka bixiso 100 milyan oo euro sidoo kalena ay diyaar u tahay ciyaartooygan inay iibiso kooxdiisa Juventus. haddaba wararka hadda soo baxay ayaa sheegay inay kooxda Juventus aanay doonayn ciyaartooygan inay iibiso sidoo kale uu ciyaartooyga Vlahovic uu ka mid yahay ama uu ka tirsan yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Juventus uuna yahay ciyaartooy aan la taaban karin oo aan la iibsan karin. kadib markuu ciyaartooyga Vlahovic ku soo biiray kooxda Juventus xilli ciyaareedka hore ayaa hadda ay jireen warar sheegay inuu ciyaartooyga ka tagi karo kooxda balse hadda waxa ay sheegay warar ka soo baxay wadanka Talyaanigu inuu ciyaartooygani sii joogi doono kooxda Juventus sidoo kalena uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Juventus oo ay adag tahay ciyaartooygan Vlahovic in la iibiyo inuu ka tago kooxda Juventus waqti xaadirkan. haddaynu eegno ciyaartooyga Bellingham sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta Madrid kooxda Real Madrid ayaa aaminsan in 150 milyan euro ay kooxda Borussia Dortmund ku qiimisay ciyaartooygeeda Bellingham aanay ahayn qiimaha saxda ah ee ciyaartooygan oo kooxda Borussia Dortmund kadib markii xagaagii hore ay jireen kooxo ku doonayay ciyaartooygeeda Bellingham qiimaha 120 milyan oo euro ayay kooxdu hadda ku qiimeysay ciyaartooygan inuu qiimihiisu yahay 150 milyan oo euro qiimahaas oo ay u aragto kooxda Real Madrid inaanu ahayn qiimaha rasmiga ah ama qiimaha saxda ah ee ciyaartooygan ay ku iibsan karto. haddaba ciyaartooygan ayay si aad ah u doonaysaa kooxda Real Madrid waxaana la filayaa in kooxda Real Madrid ciyaartooygan xagaaga dambe sanadda 2023 u dhaqaaqi doonto. haddaba waxaa jira inay tartan kala kulmi doonto kooxda Real Madrid kooxaha kale ah Manchester City, Manchester United, Chelsea iyo Liverpool oo kooxda Liverpool ayaa ah kooxda ugu cadcad ee kooxda Real Madrid kula tartami doonta la soo wareegida ciyaartooyga Jude Bellingham. ciyaartooygan Bellingham ayaa la filayaa inuu noqon doono ciyaartooyga ugu qaalisan xagaaga dambe ee sanadda 2023 sidoo kalena ciyaartooygan way adkaan doontaa inuu sii joogo kooxdiisa Borussia Dortmund maadaama ay doonayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. dhinaca kale kooxda Juventus ayaa la sheegay inay xagaagii hore ee kooxda Juventus ka diiday dalab uga yimaaday kooxda Chelsea kaas oo ahaa inay kooxda Chelsea ku doonaysay in ciyaartooygeeda N'Golo Kante kaga bedelato kooxda Juventus ciyaartooygeeda Matthias de Ligt oo xagaaga hore waxaa jirtay kooxda Chelsea inay aad u doonaysay daafacyo ka hor intaanay la soo wareegtin ciyaartooyga Fofana iyo ciyaartooyga Koulibaly waxay kooxda Chelsea isku dayday inay la soo wareegto ciyaartooyga Matthias de Ligt. haddaba hadda warar la kashifay ayaa sheegaya inay kooxda Chelsea xagaaga hore isku dayday inay kooxda Juventus u soo bandhigtay in ciyaartooygeeda N'Golo Kante kaga bedelato ciyaartooyga Matthias de Ligt. haddaba kooxda Juventus ayaa dalabka diiday oo kooxda Juventus waxa ay doonaysay in ciyaartooyga Matthias de Ligt kooxda iibsanaysa ay ka bixiso qiimaha ciyaartooygan oo waa arrinkaas oo ay ku guuleysatay kooxda Juventus kadib markii ay ciyaartooyga Matthias de Ligt kaga iibisay kooxda Bayern qiimo ku dhow 80 milyan oo euro. ugu dambeyntiina waxaa la sheegay inuu ciyaartooyga kooxda Inter Milan ee Marcelo Brozovic uu dhaawac kaga maqnaan doono garoomada muddo 3 ilaa 4 toddobaad kadib markuu ciyaartooygan dhaawac ka soo gaadhay kulankii ugu dambeeyay ee uu ciyaaray xulkiisa Croatia. haddaba ciyaartooygan Marcelo Brozovic oo ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Inter Milan ayaa la filayaa inuu ciyaartooygani soogi doono labada kulan ee ay kooxda Inter Milan la ciyaari doonto koobka Champions League kooxda Barcelona haddii ay noqoto kulanka home-ka ama kulanka away-gaba. ciyaartooyga Marcelo Brozovic oo ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Inter Milan maadaama uu yahay ciyaartooyga ugu ciyaaray lambar 6 oo ay kooxda Inter Milan ka mid tahay kooxaha ugu muhiimsan ee wadanka Talyaaniga ama horyaalka Talyaaniga aadka ugu tiirsan in kubadda gadaal looga soo dhiso oo ciyaartooygani yahay ciyaartooyga ugu muhiimsan marka kubadda gadaal laga soo dhisayo ayaa ciyaartooygan la filayaa inuu seegi doono kulamada u muhiim ah oo ay ciyaari doonto kooxda Inter Milan gaar ahaan kulamada kooxda Barcelona ay la ciyaari doonto koobka Champions League ee kala ah kulanka lagu ciyaari doono garoonka kooxda Barcelona iyo kulanka lagu soo laaban doono garoonka kooxda Inter Milan. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.